maxbuuska furdaamiyey cabdimaalig muuse coldoon oo maxbuusa ayaa wuxuu furdaamiyey maxbuuskan oo 12 sano ku xidhnaa. bismillaahi raxmaani raxiim maantaan hurriyada hele alxamdulilaahi rabbil aalamiin waxa alxamdulilaahi rabbil aalamiin maanta 12 sano xiraya jeelka Hargeysa weyne alxamdulilaahi rabbil aalamiin maanta hurriyay imika waan farxsanay alxamdulilaahi rabbil aalamiin cabdimaalig coldoon ilaahi khayr yasiiyo isaga uu dadaale in badan uu dadaale alxamdulilaahi rabbil aalamiin waxaan dardaaranayaa isaga ilaahi khayr yasiiyo isaga khayr ilaahi siiyo waxa weeye waxaan rajaynayaa isaga ilaahi gargaaro dhibaatada ku jirto ilaahi ka saaro. maanta ay taariikhdu tahay bishii 8 2022 waxaa dib xorriyadiisa u helay Axmed Cabdilaahi Cali oo muddo 12 sano oo muddo xabsiyeeda ku jiray xabsiga magaalada Hargeysa. Axmed hawshiisa siideentiisa waxa qaybta ugu weyn ka qaatay walaalkeen samafale Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon oo maantana isagu xabsiga ku jira. Cabdimaalig intii aan la xidhin ayuu soo bilaabay hawsha maxbuuskan waxa uu la xaajooday oo arintiisa kala hadli jiray ehelkii uu xidhnaa Axmed iyo magta ku lahaa. ugu dambeyn Cabdimaalig waa la qabtay isagaan hawshii dhammaystirin. markii hawshii Cabdimaalig xarigiisii xukunkiisii dhacayna wuxuu noo wakiishay aniga oo Cabdiqaadir Ismaan Dibad hawshiina aniga halka ka sii bilaabay. ilaahay mahadi ilaahay uu nagu guuleeyay hawshaas oo maanta Axmed waa kan maanta dibadda jooga. waxay naga qaateen guud ahaan waxa ku baxay $12,500 siideynta iyo furdaaminta walaalkeen Axmed. $10,000 waxa qaatay qoyskii iyo aabihii magta ku lahaa walaalkeen Axmed. 1,500 waxay noqotay qarashaadkii. $7,000 waxa keenay walaalaheena kale oromada ay ku sugan Hargeysa oo inagala joogo Khalid iyo walaalada kale ayaa 7 kun soo ururiyay. 4,500 waxa soo amaahday Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon oo ku dhammaystiray si heshiiskaas iyo hawshaasi ay dhamaato walaalkeena uu xabsiga uga soo baxo. ilaahay mahadi ilaahay waa nagu guuleeyay oo maanta waa ka Axmed maanta dibadda jooga alxamdulilaahi rabbil aalamiin. marka sheekada maanta halkan taala waxa weeye maxbuuska furdaamiyey Cabdimaalig Muuse Coldoon oo maxbuusa ayaa wuxuu furdaamiyey maxbuuskan oo 12 sano ku xidhnaa. labadiisii xariga ugu dambeeyay Cabdimaalig xabsiga ayuu ugu tagay kan imika uu ku jiray kii ka horeeyayba. marka runtii waa sheeko cajiiba in shakhsi maxbuusa oo isagu baan xorriyad haysan uu maanta ka fakaro una shaqeeyo una dadaalo sidoo walaalkiisan kale ee ka muddada badan leh uu xorriyadiisa u heli lahaa. waxa hore u jirtay iyaduna in Cabdimaalig maalintii shaqaqadu ay ka dhacday xabsiga magaalada Hargeysa in Cabdimaalig Muuse Coldoon uu ka mid ahaa ama uu kooba ka ahaa dadkii hawshii xabsiga ka dhacday soo gunaanaday kana qayb qaatay inay rabshadaasi halkeeda ku ekaato. hawsha iyo dejinta uu Cabdimaalig maalinta xabsiga ka qaatay waxa uga marakacay oo uga mahadnaqay madaxdii iyo mas'uuliyiintii xabsiga maalinta tegay oo goobjoog ka ahaa sidoo hawsha Cabdimaalig wadatinimada iyo waxaan ku wanaaga uu uga shaqeeyay isagoo doonayay inaan meeshaasi dhibaato kale ka sii dhicin. ciidankuna runtii maalinta aad iyo aad bay uga mahadnaqeen maadaama hawl iyagu ku adkaan lahayd uu isagu ka dhameeyay oo ka dejiyay. marka runtii taasina waxay ahayd talaabo hore oo Cabdimaalig intuu xabsiga ku jiray qabtay waxaana tusinaysaa inaanu Cabdimaalig ahayn shakhsi dabadda uu ku shaqeeya ee gudaha iyo xabsiga hadduu ku jiraba samafalkii iyo wanaagii looga bartay sii wadaya. sida uu walaalkay Cabdiqaadir uu sheegay arrinka aan maanta halkan u joogno walaalkeena Axmed Cabdilaahi Cali oo muddo inta walaalkeena Cabdiqaadir uu sheegay oo jeelka Hargeysa uu ku xidhnaa ilaa maanta oo bishii 8 24keedii uu jeelka ka soo baxay. marka sida uu walaalkeena Cabdiqaadir uu sheegay marka laba tiim baa arrinkan uu ka qayb qaatay. tiimka ugu horeeyay runtii arrinkan asaaskeeda soo bilaabay oo Cabdiqaadir Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa arrinkan bilowgii ka hor intaana la xidhinba uu soo bilaabay inuu ilaahay dartii magta uu lagu haysto inuu ilaahay dartii isagu kaga bixiyo. nasiib daro laakiin isagoon arrinkii bilaabay aana dhammaystirin ayuu isaga la xidhay. kabacdiina annagoo odaygan jeelka aan ku booqanayna aan aragnay ayaa arrinkan marka maadaama uu isagu xidhan yahayna noo sheegay
kadibna anaguna oo tiimkii xagga Etoobiyaanka oo Oromada siiba Oromada oo anigu aan ka mid ahay hawshii halkaas oo aan kala bilownay marka runtii sida walaalkeen Cabdiqaadir uu sheegay waxa processka kala duwan ayaanu soo maray muddadii aan hawshan aan ku jirnay marka anagu as tiimkaygu waxaanu soo ururinay lacag gaadhayso $7,000 Cabdiqaadirna wuxuu maxaan ku idhahdaa meel ka soo amaahday lacag gaadhayso Cabdimalik Muuse Coldoon 4,500 ayuu soo amaahday marka totalkii maxaa qarashkii nagaga baxay meesha waxa weeyaan 11,000 iyo badh ayay ahayd marka anagu tiimkeenu waxaanu aan keenay 7,000 saas ayay arrinkaas maanta inoogu soo gabagaboobay runtii aad baan ugu faraxsanahay runtii Cabdimalik waa sida dhammaan dadka Soomaalida iyo dadka kale ay garanayaan waa nin samafala oo maxaan ku idhahdaa dadka masaakiinta dhibaataysan haddii kuwa jeelasha ku jira haddii kuwa banaanka ku dhibaataysan yihiinba waa qofka caawinayo marka wanaaga ka qayb qaadanaya ayuu ahaa marka odaygan kaliya maaha dad Oromo hore oo muddo 20 sano sida isigii oo kale oo xidhnaa oo magtii lagu lahaa uu ka bixiyo oo soo daayay ilaa dhowr 4 qof ayaa jirtay marka kan waxaan filayaa inuu yahay qofkii shanaad marka runtii anagu si gaar ah aad baan ugu mahadnaqaynaa dadaalkii uu isagu sameeyay isagana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay maxaan ku idhahdaa u fududeeyo jeelkii uu ku jiro Ilaahay ka soo saaro runtii aad ayaan ugu faraxsanahay kun jeer waxaan ku leenahay walaalkeena aad baad u mahadsantahay wanaaga halkaa ka sii wad Ilaahay cumri dheer ha ku siiyo waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa adigoo faraxsan caafimaad qaba inaad reerkaaga aad ku soo laabato ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa